بسم الله الرحمن الرحيم si ayaantan baad noo socoteen barteena ee Facebook waxa ku jirnaa barnaamijkii badqabka bulshada maanta waxa nimid guri korontada loo galiyay si asleenahay macnaha waxay waafaqsan tahay standard ah oo macnaha qatarta korontada guriga ka yareey karto waxyaalaha loo isticmaalo waxa kamid ah cable-kana kamid ah fiiladana kamid ah oo ah madow iyo guduud size-keedana waxa waaye 4 مليمتر سكوير بدنا فيلدان تن waxa loo isticmaalaa guduudka waxa loo isticmaalaa faaska ayaa loo isticmaalaa tan newtarka ayaa loo isticmaalaa qobkan korona waxa lahaa insulation lahaa mugudbi qofka yaqaan korontada markay dabaysan tahay oo connectorkaas hoose ee wax dhex marayaan kor uu ka qaban karaa wax mugudbiyo way insulation lahaa wax gudbinayo oo qofku wuxuu dhibaya ma leh si uga badbaadino maadaama uu gurigu yahay jiingad uga badbaadino waxa si dhaxgelinay tubadii fiiladana dhaxgelinay ku dhex socodsiinay guriga dhan lacalla hadii gurigaas oo short wax ka dhasho oo fiiladaas ay qaraxdo oo maqaarkaas oo gudbiyaha oo wax gaaraan in hadana guriga uu ka badbaadiyo midkan qaybtan kale uu ka badbaadiyo ilaa jingadan badana wixii kor socotaa fiiladu wixii kor socotaa meeshan waxa hadda si umada badqabkeeda uga shaqeeyno waxa si marinay kana si dhex marinay lacalla hadii fiiladas wax gaaraan in tan ay badbaadiso external bookis isticmaalna external kaas bookiskaas markii kala goys noqoto markii guri kale wadno waxa uu isticmaalanay kan ayaa uu isticmaalanay oo asay nafsigiisa caaguna sida ogtihiin wuxuu kamid yahay gudbiyaasha ayuu kamid yahay waxa kale oo isticmaalnay بريس UK ayaa isticmaalnay بريس UK ga waxa uu isticmaalay ujeedooyinka uu isticmaalay waxa kamid ah asagoo ah kii korontada laga isticmaalayay oo guriga uu rabo ama duwar oo mashiin uu isticmaalayo ku gashanayay haduu feero isticmaalayo korkiisa wuxuu ka kooban yahay caag uu ka kooban yahay sida kan oo kale uu ka kooban yahay marka waxa ku dooran waxa kamid ah gadaal wuxuu ka leeyahay caag uu ka leeyahay horena caag uu ka leeyahay hal meel oo tubada ka ay fiilada ka shanoo leeyahay kaas marka waxa ku talaleeyeen bulshada si badqabkeena kor u qaadno in loo isticmaalo guri kasta in furiyaasha saas oo kale safety-ga ah oo badbaado ah oo labada dhinacba caaga ka ah oo gudbaashka in isticmaalaan waxa kale oo isticmaalay fure daaradamiye oo asagana UK ah daaradamiye UK ayaa isticmaalay oo labada dhinac ay ka yihiin caag gudbiyaal ay ka yihiin ayaa isticmaalnay waxyaalaha kale oo isticmaal waxa kamid ah furahaygarkaas waxa waaye waxa isticmaalnay mid oo laba bool ah laba god ah ayaa isticmaalnay oo ah faas iyo newtar ee labada ay wada galayaan badana waxa la isticmaalaa faas kaliya la isticmaalaa laakiin annagu maanta gurigan si badqabka bulshada kor ugu qaadno waxa isticmaalnay mid laba bool ah oo faas iyo newtar ah ta ujeedaan guriga waxa halka korontada waxay ka gashaa halkan guriga waxa soo gala waa manifas waa faas iyo newtar cable-ka guriga galayo iyo jingada hadii istaabtaan cable-ku waa jilcsan yahay waxa laga yaabaa jingadaas inay jarto markay jabto in fiiladii markay jabto connector-kii gudaha ku jiray iyo jingadii istaabtaan markii jingadii iyo korontadii istaabtaanna waxa ka dhalan kara guriga dhan inuu noqdo electric inuu noqdo waxa soo galnay qaybtii guriga qayb kamid ah guriga oo ay ku jirto saacad ay ku jirto meeshan tubadii guriga ay banaanka ka imaanayso baali ka imaanayso waatana ayadii oo fiilada ay ku dhex jirto wixii ku dhex jirtaa fiil caag ah waxay u tagtaa saacadii u tagay saacadii waxa ka soo baxay awda ka soo baxayo awdkii ka soo baxa circuit breaker macnaha furahan ayaa meesha noogu xiran oo magariiniga la yiraahdo furahaygarka la yiraahdo furahan u jeedaan wuxuu ka kooban yahay faas iyo newtar ayuu ka kooban yahay ka bacdi waxa ka bixinay tubo kala ka bixinay oo ku waardeynayno fiiladii meeshan ka baxday aku waardeynayno inuu guriga wax macnaha inay istaabtaan korontada cable-kii iyo gurigii jingad ah inay istaabtaan waxa dhex marinay cable-ka waa ka soo socdaa halkaas oo maray halkaas markuu marayo meeshaas wuxuu tagay external bookis oo tagay meeshaas oo external bookiskaas oo ah junction bookis ah meeshaas marka waxa way meeshii fiilada oo joint-ka la iska qabanay faas iyo newtar-kii way waa u jeedaan junction bookskaas ay tagtay fiiladii la isku xiraayay oo fiiqneed wixii ugu dhex jirta caagaas wili caagaas wuxuu difaaca macnaha in gurigaasu ay korontadii
fiilooyinkii iyo jingada inay isabtaan ay wali ay ka difaacayaa wuu baxay nalkii markuu sii aadayo wali tubadii ayaa ku sii jirto waa kaas nalkii waa noo shidan yahay furihii laga demin lahaa nalka oo halkan ka yimid oo junction box kan ka yimid oo soo raacay halkaas ka soo leexday wuxuu ka soo galay meeshan oo ah daaradamiyahan markii ay gelinaynay waxa u sameeynay gadaashiisa waxa marnay alwaaxa marnay lacalla hadii ciyaal ama qof weyn oo damco inuu taabto in aysan wax macnaha dhibaato ay korontada ka soo gaarin oo ah barnaamijka awadno oo ah badqabka bulshada si u yareeno khatarta korontada waa ujeedaa gadaala ka taabana hora ka taabana waa kana wala dimina nalkii uu damaa waa daara nalkii uu daarma waa kana saaxiib korontadii marka waxa la noqonay saaxiib ee nalata markaas waxa qayb ka mid ah waaye badqabka bulshada waa soo raacnay korontadii way soo noqotay junction boxkaas markay timid guriga kale qayba ka sii aaday laba qol xagga naga sii jirto iyo barsadii idaaradii xagga naga sii jira junction boxkaas meeshaas waxa waaye waa meel wax lagu kala qaybinayo oo korontada ku qaybinayno mid kale dhinacaas musqusha ayay sii aaday ayadoo wali tubadii ku sii dhex jirto oo ah qayb ka mid ah badqabka bulshada macnaha qaabka korontada dadka ay macnaha khatarteedu ay macnaha ku yareen karno waxa u jeedaan waa meeshan waa bareeska guriga oo jikadan laga isticmaal lahaay waa kana waa la daaray waa la dimiyay wali waxa korontada u keenayo tubo balaasig ah u keenayso oo ah in macnaha ama dadkii meeshaas korontada la noolaay ee wax dhibaato ah ee u yeelin intaan hadda waa qaybtii korontada meeshii saacadii meeshii laga qaybinay meeshii guriyaha dhan ka wada aadaysay dhinacaas musqushay ka aaday dhinacaas halkaas ka aaday mar walba wax kala qaybinayna ama meel kale ay u gudbaysana wax isticmaaleyna junction box marka qaybaha kale ayaa tagayna ayadana sidoo kale u jeedaan waxay ka soo gashay oo meeshii saacada ka timid halkaas ka timid wali wixii la socotaa tubo ay socotaa halkan ay timid junction box ay timid junction boxkii mid way gudubtay tubo kale oo plastic ah ayaa gudbay halkaas ay u aaday oo ay dhex marayso fiilooyinka inoo dhex marayaan isla ayadii way soo degtay meeshan waa barees waa kaas waa daaran yahay waa dansan yahay wax dhibaatana hadda macnaha bulshadii iyo dadka guriga ku nool ma u geysanayso oo ujeedin waa kana bareeskii waa kana di guriga xataa daah la saaro daahi macnaha ma soo kuusayso wax ma ka muuqanayso xogaa yar cabir yar gudaha gelinay waa kana saas soo soco nalkii marka imaanaynay ayadana junction box oo sameeynay waa kaas junction box oo sameeynay daaradamiisi tuba ayaa ku timid balaasig ah waa kana waa dimina waa daara waa kana uu socotay junction box halkaas tagay junction boxkaas markuu halkaas tagay waxa ka helnay meeshan inuu ka helno furihii daaradamihi marka ka baxna junction box kale ka aaday guriga kale isu gudbay wali waxa ku dhex jirto tubadii fiilid waxa ku dhex jirto tuba ku dhex jirto marka waxa ogaanay marka isticmaalaynay furooyinka marka isticmaalaynay furahan badan waxa lahaa fur UK lahaa waa daaradami oo UK kan wuxuu leeyahay waa laba qayb isku fadhiisanayo waaye qayb gadaal darbiga ku dhagay qayb korka ku fuulayo qaybtan marka badana waxa waaye badana waxa lahaa waa 16 ambeer ku jiro oo celin karo macnaha waa 16 ambeer sidaas oo kale kan waa daaradami UK sidoo kale guriga wuxuu u isticmaalay barees UK barees UK isticmaalay meeshan oo jeedaan halkan guriga waxa u isticmaalay barees UK ayaa isticmaalay waxaana loogu dhex jiro cablekii fiiladii ayaa meeshan loogu dhex jiro gurigan kortiklintiisa waxa loo isticmaalay furo heegala loo isticmaalay oo laba bool ah oo ah first iyo neutral igalaya macnaha kan oo ka amaan badan ama ka badbaado badan midka kaliya oo halka lug ah macnaha ma lagu wareegayo macnaha dib ma ka dhalanayo macnaha haddii feeska xataa banaanka laga kala wareego oo banaanka shaqo in laga qabto oo wax kala wareegaan mar walba feeska iyo neutralka meeshan ku joogaa intaas ayaa maanta waxa ku soo koobeynaa barnaamijkii badqabka bulshada ee ayaantan dhan wacyigelinteena awadnay iyo qaabka korontada loo geliyo guryaha jingada. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.